بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حان ولي إن شاء الله تعالى كوضا هاللينا بشي رمضان وبركيسا إلهي سبحانه وتعالى هنغا أقبل قفك مسلم كاوحا لو باهن يهي إن برطو أما وحكا أغادو سونكيسا محابرية taana waa cilmiga loo baahan yahay inaanu barano waa qofku uu soomaya soonka shuruud buu leeyahay shuruudi inaad ogaato qofka soonka maxaa looga baahan yahay waqtigee suxuranaysa waqtigee afuraysa maxaa kugu imaan kara maxaa soonkaada buriya intaan gelin soonka waxa buriya qofku suxuurta waa waqtiga fajirka ilaahay subhanahu wa ta'ala loo fududeeyay baryahan dambe qofka haduu magaalo joogo saacada yaalo hadii kala aadaanka maqlaysan wadan islaam hadaa joogto afurkana waa maqribkii qorraxda markay dhacdo afuraysa soonkaada maxaa buriyo waxaan dhamaan ognahay in soonka cunto iyo cabitaanka laga fogaado ay soonka buriyaan qasdan aw amdan qofka haduu cunto cuno ukas ama uu cabitaan cabo oo si u kas ah oo la kac ah waa soonkiisa waa buraya waxa sidoo kale la mid ah aljimaa qofka inuu u galmoodo xaaskiisa fi nahaari ramadaan maalin ramadaan alhayd wal nifas dhiiga caadada gabadha iyo dhiiga dhalmada sidoo kale qofka inuu dhiig iska soo saaro inkastoo culimadu ay ku kala duwan yihiin alxijaama uu istoobo qofka haduu istoobo dhiig fara badan oo ka soo baxo culimadu waxay qabaan in uu qofkaasi waxa weeye soonkiisa uu jabayo inahaas waxa weeye waxyaabaha waxaan sheegnay jirka ka baxayo jirka waxyaabaha galaya cuntada iyo cabitaanka iyo waxa u dhigma waxyaabaha jirka ka soo baxaya sidoo kale oo soonka uu ku barayo waxa kamid ah alqay'u matagu laakiinse ma aha kan iska yimaado oo qofka haduu soo dhaafo mataga marka qofkaasi afuri maayo ama soonkiisa kama burin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man dara'ahu alqay qofka mataga uu soo dhaafo fala shay alayhi waxba korkiisa ma aha wa man istaqa fa alayhi alqada qofka laakiin mataga iska keena qala lagu leeyahay qofkaasi qala ayaa lagu leeyahay marka wax kastaba ku kacayso waa inay noqdaan waxa aad sameynayso waa inaad ogtahay inay soonka burinayo ama in kale cabitaanka iyo cuntada qofka haduu hilmaamo la shay alayhi wax korkiisa ma aha buu soo kacay meel buu galay cuntu arkay waa ishilmaamay inuu sooman yahay waa uu cunay qofka waxba lagu malaha laakiin si kasadu cuno soonkiisa waa buri dambi weynna waa ku dhaxay qofka haduu xaaskiisa u galmoodo fi nahaari ramadaan galmadana ma oran kartid waa hilmaamay iyo waxa qofka haduu maalin ramadaan asagoo og maalin ramadaan inay tahay oo u galmooday xaaskiisa marka qofkaas soonkiisa waa ka buray kafaarna waa lagu leeyahay oo waa inuu qoor xoreeyaa haduusan xoreyn karin shahrayni mutataabicayn inuu soomaa 2 bilood oo isku xigta haduusan awoodin markaasi inuu 60 miskiin ah u quudiyo way 60 miskiin inuu quudiyo it'aamu 60 miskiina marka taa waa dambi weyn qofka marka inuu ka fogaado loo baahan yahay galmadaha marka hadii ay soonka burinayso ka waran qofka inuu xaaskiisa la faraciyaaro ama uu taabto ama uu dhunkado fahada la ba's wax dhibaato ah malaha qofka xaaskiisa inuu dhunkado laakiin inuu is ilaaliyo culimadu way kala qaadaan qaar waxay yiraahdaan haduu ninka dhalinyarada yahay yuusan u dhawaan laga yaabaa qofka ninka dhalinyarada ah inuu xooga tarax tago oo hadhoodi galmada uu ku dhaco ama ninka odayga ah waxay yiraahdeen wax dhibaato ma laha ayagoo daliishanaya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam nin oday baa u yimid wuxuu yiri ma laha nin dhalinyarana waa ka reebay laakiin xadiisku waxa way waa daciif oo culimada sixadiisa waa isku haystaan
sidaa daraadeed marka walaalayaal waxaanu soo aragnay cuntada oo kas ah qofka hadduu cuno soonkiisa waa burayaa sidoo kale qofku hadduu cabo si uu kasoo cabo soonkiisa waa burayaa qofka hadduu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan soonkiisa waa uu burayaa gabadha muslimada ah waxa weeye caadadu hadday ku dhacdo fii nahaari ramadaan soonkeeda waa uu burayaa soonkeeda waa uu burayaa sidoo kale dhiiga dhalmada hadduu gabadha ku dhaco ayadana sidoo kale waxa weeye waa afuraysa oo soonkeeda markaa waa uu burayaa iyo qofka inuu matago hadduu mataga iska keeno oo si ula kac ah iskaga keeno mataga soonkiisa isagana waa buraya qada baa lagu leeyahay jimaaca galmada sidoo kale waxaa raaca qofku in uu iska keeno biyaha al-istimnaa biyaha inuu gacanta iskaga keeno hadduu gacanta iskaga keeno dembi aad u weyn weeye marka horeba haddana fii nahaari ramadaan dembigii waa sii weynaanayaa laakiin kafaaradii hore oo galmada laguma laha waa taa galmada keliya ah weeye tan istimnaaga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa tii uu yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu waxaa laga rabaa shahwadaadana inaad ka tagto marka dembi weyn buu qofkaa galay hadduu arrinkaas sameeyo ee biyaha ka yimaadaan biyaha dhalmada ah hadday ka yimaadaan uu arrinka uu sameeyo soonkiisa waa buray laakiin maalinta waxa weeye wali wuxuu ka fogaanayaa cuntada iyo cabitaanka waxyaabihii kale o dhan waa calayhi alqadaa maalintaasuu soo celinayaa ama ayuu qalaynayaa ilaahayna subxaana wa tacaala dembi dhaaf ayuu weydiisanayaa xijaamada nabi sallam dadka in qofka inuu istoobo markuu sooman yahay fii nahaari ramadaan afdara alxaajimu walmaxjuum nabi sallam wuxuu yidhi qofka kan wax toobayo iyo kan la toobayo labadaba waa afureen marka sida raajixa ah ama sida daahirka ah waxa weeye qofka haddii la toobo in uu soonkiisa uu burayo oo maalinta lagu leeyahay ka waran marka qofka hadduu dhiig iska saaro oo jirkiisa dhiig badan ka saaro culummadu marka waxay ku qiyaaseen toobitaanka qofka inuu dhiig bixiyo maalan donation of blood dhiiga inuu waxa weeye isbitaal aado dad ama xanuunsan waxa uu dhiig siiyo taa marka waxay la mid tahay taa oo kale qofka dacfi bay ku keenaysaa oo soonkii maqsuudkiisa laga yaabaa inuu meesha ka baxo marka taa oo kale ma banaano oo waxa weeye soonka waa ku buraya ama haddii dhiig yar uu ka yimaado adoo sandaarsanaya ama adoo waxa weeye sangaro kugu dhaco ama wax yar ee ku saraan oo dhiig yar uu ka imaado fahada laa ba's taa wax dhibaato ah ma laha waxyaabaha kale u baahannahay inaan iska ilaalino oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayna amray inaan iska ilaalino markaan soomannahay nabigu wuxuu yidhi wabaalig fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow sandaarsiga ilaa inaad sooman tahay mooye marka sandaarsiga iska ilaali laga yaabaa in sandaarsiga aad samaynaysid biyaha inay gudaha ku galaan marka waxaad iska ilaalinaysaa waxyaabaha hadda aan soo sheegnay iyo wixii u dhigma ayaa iska ilaalinaysaa dhiiga yaroo kaa soo baxa wax dhibaato ah ma laha ayaan nidhi cuntada iyo cabitaanka wax u dhigmana ha qaadan sida cirbadaha waxa weeye vitamiinka oo kale ama cirbadaha energy-ga qofka siiya kuwaana sidoo kale waa inaad ka fogaataa cirbad kastoo nourishment leh ama leh inay awood ku siiso ama vitamiin ama waxyaalaha waxa weeye la midka ah intaa ma banaano qofka inuu qaato waayo waxay gelayaan booskii cunnada iyo cabitaanka ayay gelayaan intaas ayaan kusoo koobaynaa insha Allah tacaala maantay ilaa waqti dambana qaybta dambe ayaynu sheegi doonaa insha Allah kamid ah axkaamta soonka hada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baa u mahadsantihiin